daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo ku saabsan 400 oo qoys oo xukuumadda Soomaaliland ugu deeqday deeq isugu jirta bariis, sonkor iyo daqiiq iyo maryaha dharka laga xidho iyo buskudka nafaqada oo loogu deeqay dadkay abaaruhu saameeyeen ee degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil kaasoo markii ugu horeysay deeqda qaybinta laga bilaabay tuulada Geeru oo ka tirsan degmada Lughaya waxaan uga sii gudubnay dhinaca degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil. waxaynu joognaa tuulada Geeri oo ka tirsan deegaanka degmada Bulaxaar waana tuulooyinka dhinaca bari ugu xiga degmada waxa saaka soo gaaray raashin ay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabtu ay soo bixisay raashinkaasi waxaanu halkan ku dejinay 9 qoys waxa deegaankan ku nool dadkii ay xooluhu ka baxeen ee barakacay oo tuuladan soo degay dadkii baanu markaa iyo dadkii kale ee iyaguna abaaruhu ay meesha keeneen oo isku jira ayaanu raashinkaasi halkaa ku wada siinay waxaanu halkan uga mahad celinaynaa hay'adda bisha cas ee ku soo caawisay dadka masaakiinta ah raashinka iyo dharka wada socda waxa kale oo halkan uga mahad celinaynaa maareeyaha ka hortagga abaaraha Faysal Cali Sheekh oo isaguna hawshan gacan mug leh ka geystay si ay dadkan tabaalaysan ay wax u soo gaaraan warbixintoodana hore u hayay oo riboodka deegaanka oo dhan iyo xaaladda abaarta iyo dadka barakacayba xogtooda haya isagana aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo uga gacan geystay dadka barakacay ee xooluhu ka baxeen ee abaaraysan sidii ay wax u soo gaadhi lahaayeen dowladda Soomaaliland ومدحونا كيا مسبيح عبدي waxaan ku xogsiinaa maareeyaha kaydka raashinka Faysal Cali Sheekh oo alaabtan isagu degmadan ugu soo deeqay oo u keenay waxaan leenahay maareeyaha baad mahadsan tahay xeebadka la yiraahdo Geeri la yiraahdo weeye badda ayay ku dhinac taala dad jilicsan oo barakacayaala oo xoolo ka madheen oo waxba haynin oo camal hayn oo shaqo hayn ayaa degan tuuladan halkan aan joognaa waa magaalada Geeri waxaan salaamayaa madaxda degmada Bulaxaar assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta waxa ay raacday dhulka abaaro badan baa ka jira waxaan mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland marka hore ka bacdigana waxaan mahadnaqaynaa Imaaraadka soo caawiyay walaaladood xooluhu ay ka baxeen abaaru heleen mar labaadkana mar saddexaadkana waxaan u mahadnaqaynaa maareeyaha abaaraha xusay dadka walaalihii abaaruhu ay wadanka ku hareeyeen waxaanu intaa leenahay dhulku waa aad baa loogu jilicsan yahay waanu ka gudoominay maareeye haddii aad na soo xustay anigoo ku hadlaya afka ceelka magaalada Geeri iyo afka bulshada waan kaaga mahad celinayaa haddii aad tahay maareeyaha abaarta dadku waa dadkii soo barakacay xoolo ka madheen xooluhu abaartuna wali sidii bay u joogtaa ilaahay baan rajaynaynaa ilaahay naga soo jabiyo maareeya waxaanu ka codsanaynaa wixii ilaahay noogu soo ka dhiibo inaad dadka aad la ogaato aad saaka hadii la horaantoodii aad ku xustay magaalada Geeri Bulaxaar maamulka Bulaxaar u sokaysa xagga saaxiil xigta waan kaaga mahad celinaynaa inaad sidaa u shaqayso haddii alla kuna waxa kulbaa la kugu soo dhiwaa dadka ula socoto ayaanu maareeye kaaga mahad celinaynaa maareeyaha keenay resoorta qarankana waanu mahad celinaynaa hay'adda bisha cas keentayna mahad baan siinaynaa waanu mahad celinaynaa soortaal naloo keenayna mahad baanu ka naqaynaa dad cayroobay oo xoolaalahayn oo iska fadhiyo oo degan baanu anagu nahay halka wuxuu khayr lawn baanu ku sugaynaa wixii nalagu soo caawiyo waanu idinka mahadsanaynaa waanu noo gudoonay waanu idinka gudoomanay sida ay si ka badanay naloo soo ogaado ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay hadii noogu kiin soo dhiibo waad baanu u rishoonaynaa hay'adana mahad baanu u celinaynaa aad iyo aad baanu ugu fiicanahay waxaan ka oran saakana aad baanu idinka qaadanoo idinka gudoomanay waxaynu joognaa xaruntii degmada Bulaxaar waxaana soo gaadhay 400 oo qoys raashinkoodii iyo 50 kartoon oo dhara oo loogu tala galay dadka tabaalaysan
ay xooluhu ka baxeen ee aan waxba haynin ee tuulada soo degay ee degmada soo degay ee xarunta degmada degan wixii loogu talagalay ay xukuumadda Soomaaliland noogu soo dhiibtay maamulka degmada Bullaxaar haddii aanu nahay waa naga halkaa dhignay waa naga halkaa isugu hagaajinay u habaynay dadweynihiina waa kuwa dul taagan waxaanu halkan uga mahad celinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha uu u magacaabay hay'adda kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u mahad celinaynaa oo kale hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta ee iyaduna deeqdan ku soo wareejisay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu anagu degmada wakiilka uga nahay ayaanu iyadana u mahad celinaynaa waxa deegaankan degmada Bullaxaar waa deegaan aad u ballaaran waa degmada ugu ballaaran gobolka Saaxil ugu jiida dheer waa degmada ugu xeebta ballaaran waa degmo abaartu ay ku baahsan tahay muddo 5 sanadooda wax roobaba oo deegaanka qaybo ka mid ah ka da'ay ma jiro degmadu waxay teedsan tahay dhul aad u fara badan ma aha xarunta degmada iyo goobtii aanu saaka 6dii subaxnimo ku soo qaybinay raashinka ee geeri way ka badan tahay way ka fara badan tahay waxaanu baaq u diraynaa in dadka tabaalaysan ee ku baahsan deegaanada degmadu ay xukunto iyo tuulooyinka badan ee dhowr iyo 10 ah ee bari iyo galbeedba naga xiga in iyagana wixii loo heli karay ilaahay keeno la soo gaarsiiyo waxa dadkaasi ku teedsan yihiin tuulooyinka Salay gargaarka geeri Boodaale Quraco Ceel Sheekh Qabille Faruur dhul badan oo aanan gaarin aan wali aan waxba aan gaarin oo dadkaasi ku teedsan yihiin ay xooluhu ka bixeen baa jira dadkaana wixii ilaahay keenay la soo gaarsiiyo sida aanu maantaba u gaarsiinay wixiina loogu soo dhiibay ayaanu u gaarsiinaynaa waxaanu saaka soo qaybinay 190 qoys oo geeriya waxaanu halkana ku qaybinaynaa 310 qoys oo aanu raashinkoodii iyo dharkoodiiba aanu sidaa isugu qaybinay si alcadaala raashinkiina uu sidaa ugu qaybsamay caagad saliida kidkii xidhnaa iyo dharkii oo aanu isagana intaan u furnay calaa nafar aanu uga dhignay intaa aanu u gaadhsiinay sidaasaannu ku dhammaynay uguna qaybinaynaa iminka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay abaas laga jabiyo aamiin dhaha ilaahay abaas laga jabi ilaahay abaas laga jabi ilaahay abaas laga jabi ilaahay roob iyo raxmo ka baranay ilaahay roob iyo raxmo ka baranay qaab bil aad waxba dhigi karto qaacada ilaahay baa lagu dhirgaa waar ilaahay baynu baryaynaa ilaahay baynu baryaynaa waa dhibaato lagu dhacday marka ilaahay bari weynay ayay dhibaato lagu dhacday waar ilaahay aynu barino masaajidada aynu galno aynu cibaadaysano markaas ilaahay naga loo naxariisanaya markaan inagu isku naxariisanno ayuu ilaahay loo naxariisanaya maanta halkan waxa weeyaan degmada magaalo xeebadka Bullaxaar waxa lagu qaybinayaa raashinkaasi mucaawamad ah maanta hore ilaahay baa leh talabaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa leh Muuse Biixi Cabdi tasaddexaad waxa leh maareeyaha raashinka kaydka qaranka Soomaaliland mudane Faysal Sheekh oo la soo gaarsiiyay raashinka barta yaala iyo maryahan annaguna si loo soo gaarsiiyay ayaana isku qaybinaa mariyay raashinkiiba waa raashin iyo saliid iyo maryo laga xidho dhaxanta laga xidho waayo marka waxa ku jira waqti dhaxmaa macal mariyay waxa ku jira dhaxsad mariyay dhaxanta laga xidhay ilaahay baa mahadle cuntadana waa cunto nafaqo leh oo loo xaqsiis ku jirta nafaqada carruurta tidaka waaweyn iyo tidud dumarka bas ku jirta sidaa daraadeed maanta halkan waxaan isku rumeeyay intaanu qaybino waxaan saaga soo qaybinay waxaan bageeri soo qaybinay 9 qoys saaga soo qaybinay إما كان 300 qoys ayaanu qaybinaynaa doolaynado oo imika dadku diyaar yihiin sidaa ajriga maanta fursada qaaliga ah ayaanu imika haysano maadaama loo joogo TV-ga qaranku annagoo arag weligiiba TV qaran socda ana arag weli maanta waxaan ka faa'iideysanaynaa warbaahinta caalamka u maranaynaa wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed oo uu sheegaynaa degmadan dheer ee xeebtaasi waxa la wax gaariyo ay leedahay ma jirto wasiir
annagu madaxweynaha la hadli mayno waayo madaxweynaha waxaa ka sokeeya wasiirkii ka sokeeya wasiirku isagaa madaxweynaha gaadhsiinaya dadkana waxaa ka khasda brotokoolkii magacaad wax codsanayso waa inaad ka codsato wasiirka arrimaha gudaha waayo annaga wasiirkan xukuumad markaa doonay maamulka degmada Bulxaar marka la wasiirka aanu gaadhsiino wasiirku madaxweynuhu gaadhsiinaya degmadan dheer ee ilaa iyo geeri ilaa iyo ceelsheekh ilaa iyo boodaale ilaa iyo faruur degmadaas wax alla wax gaadhiyo leedahay ma jirto mid bilays mid dawlad hoose wax alla wax leedahay ma jirto iyo mid caafimaadna annagu maanta gaaraan ku shaqeynaa soo kiraysanay markaan tagayna caasimadda ama aan tagayna gobolka waxaan raacnay gobolaha caanaha qaata haddaan madaxda degmada nahay wasiir salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد السلام عليكم waxaan dhammaan dadka salaamaya ilaa madaxweyne ilaa maareeyaha nabadgeliyo waxaa ii raacay ilaahay roob ha siiyo ummadda wixii ay ku dhoolaa jireen ku baarbi jireen ilaahay ha siiyo waxaa mahad leh madaxweynaha waxaa kaloo mahad leh maareeyaha raashinka kaydka inta waxaa ii raacay wixii naloo soo diray oo 310 iyo maryo wayna hor yaalleen wayna soo gaadheen waay na soo gaadheen waa lagu dhex jiraa waa la qaybinayaa imanka ibaabay u leeyihin hadhow waxay noqon mooye assalaamu calaykum waraxmatullah marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi marka xigana maareeyaha raashinka kaydka iyo bisha casan oo keentay raashinka halka yaaleen maanta aan ku qaybsanayno sida odayadii horeba sheegeen dhulka waxa ka jira abaar fara badan oo muddo dheer jirtay ummad badan baa hadda iskugu timi Bulxaar iyo agagaarkeeda daruur maalin yar heshay bay ahayd daruurtii waa lagu markiiba doogeedii wuu dhammaaday dadka abaarti xoolihii way ka dhintaan oo aad iyo aad bay cudurro u hayaan abaar iyo gaajana ay u haysaa taa horta ilaahay baynu ka baryaynaa inuu raxmaddii la soo gaari jiray ilaahay degdeg inoogu keeno oo inoo siiyo dawladdana waxaanu dee leenahay dadka abaaruhu dhaceen dee raashin caawimaa ha lala soo gaadho oo mid degdega ha lala soo gaadho intani waxba ugama fillo ummadda waxna ka gaari mayso way ka badan tahay ummadda taallaa degmada gudaha Bulxaar iyo agagaarkeeda oo qura ayaa ka badan dhowr kun oo reer ama 3 kun oo gaaraysa abaarta ay isu keentay ku soo ururisay waxaan leeyahay dawladda annaga oo u mahadnaqayna oo inta ba ay noo keentay inay taa looga soo kordhiso waxa jira xooluhu way bukaano cudurrey qabaan kala wada nooca taana inay dhaqaatiirta ay noo keenaan taana xoolaha ay noo loo daweeyo sidaa ayaan isku salaamayaa waxa halkan aan ugu mahadnaqayaa haddii ilaahay beeka mahadda u horeeya ilaahay baa mahadda labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa leh ee xukunka imka haya mahadda saddexaad waxa iska la maareeyaha kaydka iyo raashinka haddii ilaahay beedankeeda leeyahay deeqdan imka meesha la keenay ee horteena taala in soo gaarsiiyay degmada soo gaarsiiyay sida uu xogayo sheegay ama gudoomiyuhu sheegay degmadu tuulooyin badan bay xukuntaa tuulooyinka abaara fara badan baa ka jira hawsi daraato meelo meesha galbeed ka xigta sida aan wardhagoodka ku hayno waxa ugu hawl badan oo noogu dhib badan degmada haddaanu nahay waxa la yiraahdaa gaadiid xumo sida gudoomiyuhu sheegay haddii meel ama abaarta laga soo qaybiyo ama xagga nabadgelyada laga soo qaybiyo waxaanu ku gaarno haddii gaari degmo tahay iyo haddii mid caafimaad tahay iyo mid bilays tahay gaadiid xumo ayaa noogu dhib badan dilay beedankeeda ilaahay waxaan ku codsanaynaa madaxda wasiirka iyo haddii ilaahay beedankeeda leeyahay wixii kale ee maamulaba iyo gobolkaba in madaxda horta degmada wax gaadiid la yiraahdo waxa lala soo gaaray caawimo ugu horeeya gaadiid noqdaan wixii kale caawimooyin dadka tabaalaysan abaaru hayaan loo keenayna ee loogu soo daro ilaahay waxaan ku baryaynaa in haddii ilaahay beedankeeda leeyahay roob iyo raxmad caawimo waxa ma gaadho gamca bilaadan waxa ma kordhiyaan oo cid ma deeqaan muxuu ahaa doolin baan dadka wada gaadhin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay raxmad iyo wax dadka wada gaadha
una siiyo. sidoo kale barnaamijka waxaa dayactir iyo dib u habeyn lagu wado xarunta lagu daryeelo marka kalluunka laga soo saaro badda xeebta degmada Bullaxaar. waxa weeyaan xaruntii degmada Bullaxaar waa goobtii loogu talagalay xarunta kalluumaysiga. hore waxay u ahaan jirtay Nagfish meel loo oran jiray bay ahayd. waxa imikana dhismahan cusub wada hay'adda la yiraahdo Fair Fishing oo noogu ballan qaaday soono wada qalab kii kalluumaysiga baraf dhaliyayaashii qalajiyihii iyo qaboojiyayaashii iyo talaagadihiiba iyo weelkii lagu qaadiyay kalluunka marka kalluunka laga soo saaro badda ee lagu iibgeynayay. intaaba waxa noogu ballan qaaday hay'adda Fair Fishing oo imikana wada qorshihii dhismaha goobtii la dhigi lahaa qalabka oo dib u rebuilding garaynaysa dhismaha cusubna ku kordhin doonta goobtan imika aanu taagannahay oo ah halkii loogu talagalay goobta kalluumaysiga ee degmada Bullaxaar. waxaa goobtan imika nala jooga injineerkii dhismaha ee Fair Fishing oo isaguna ka warbixin doona kulli toole qaabka ay u wadaan iyo dhismahan habka ay u wadaan iyo warbixintaana isaga ay siin doona. laakiin waxaanu halkan aan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawshan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga oo hawshan ka wada qayb qaatay sidii looga hirgelin lahaa Bullaxaar in ay noqoto goob kalluumaysi oo kalluunka waxa weeyaan xeebta Bullaxaar waa xeebta ugu kalluunka badan leh. waa xeebta doonyaha ka yimaada Laasqoray iyo kuwa ka yimaada Seylac iyo kuwa ka yimaada Lughaya waa halkii habeenkii u soo wada hoydaan. waa goobta ugu kalluunka badan leh ee la wada xaqiiqsan yahay inay tahay meesha ugu kalluunka badan. waxaanu doonaynaa kheyraadka badda inaanu ka faa'iideysano. waxaanu rabnaa inaanu deegaanka uga faa'iideyno maamul ahaan. waxaanu culays ka saarnay maamulka degmadu wuxuu culays ka saaray sidii loo heli lahaa qalab kalluumaysi oo dhammaystiran. waxaa halkan noo jooga 6 laash oo ay 3 u baahan yihiin in la wargareeyo oo dib loo hagaajiyo. 3na ay cusub yihiin mashiinadoodu cusub yihiin. qalabkii kalluumaysiga ee badda la dhigayay oo nooc walba lehna waa noo dhammaystiran waa noo yaalaan. waxaanu dabadeetana isku xidhaynaa wixii aanu hore u haysanay iyo waxa Fair Fishing imika nooga soo socda ee ay imikana gacanta ku haysa dhismaheedii iyo bilowgeedii inaanu isku xidhno oo nu deegaanka uga faa'iideyno ayaan noo qorshaysan. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waanu mahad celinaynaa. xoolaha iyo kalluumaysiga ee imika gacanta ku haya hawshaasi sidii Bullaxaar looga hirgelin lahaa ama ay u noqon lahayd goobta kalluumaysiga. waxaa halkan inaga dhow dekadii qadiimka ahayd ee Bullaxaar oo inoo jirta ilaa 300 oo mitir dhinaca bari inaga xigta oo aynu ciribta ku haynaa imika. magaaladii hore ee Bullaxaarna waxay inaga xigtaa dhinacan bari. markaa magaalada agteeda weeyaan goobtan kalluumaysiga loogu talagalay dekadii bay ku ag taallaa. waa goob surfayn laga qaaday. waa goob dekad ku habboon. waa goob laga dhigi karo goob kalluumaysi. waxaanu markaa leenahay hawshaasi ay Fair Fishing gacanta noogu hayso iyagana waa ku mahadsan yihiin. hana noo soo dedejiyaan sidii qalabka loo soo dhigi lahaa shaqadu u bilaabmi lahayd. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta marka hore ilaahay baa mahadleh. halkan ay joogna waa magaalo xeebta Bullaxaar. waa meeshii loogu talagalay Nagfishta in kalluunka lagu xanaaneeyo oo lagu hagaajiyo lagu qaboojiyo markaad ay la soo baxaan dadku kalluunka ay markan lagu qaboojiyo oo lagu hayo. waxaana hawsha gacanta ku haysaa Fair Fish injineerku uu jooga sagaa ka warrami doona. waxaan kaloo ku darayaa annagu haddaanu nahay maamulka degmada Bullaxaar dawladdan maanta cusub baan doonaynaa inaan la talaabsano. anigu dawladda hore ka hadlay waxa la wax loo qabtay ma jirto. laakiin imika dawladda cusub maanta jirta waxaan doonaynaa inaanu talaabada qaadaba la qaadno. maanta waxaanu sii xalxalinaynaa xarunta kalluumaysiga aanu ku daryeeli lahayn. wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga iyo agaasimaha kalluumaysiga is aragnay. runtii niyad badan bay u hayaan inay degmada Bullaxaar noqoto meel weyn
oo suuqa waraabisa hargeysa iyo berbera annaguna waxaan kula joogaynahay in aan noqonno dadkii ka shaqaysan lahaa hawshaasi iminka qaboojiyaasha inta la keenayo laashkii way joogaan shaqaalii way joogaan waxaan u baahannahay waa suuqaanu geyn lahaynu suuqaanu geyn lahayna hadda hargeyso dhan baa ayaa kalluunka xool lagu baahan yahay berbera waa talo waxaa loo 70 kilomitir laakiin berberi waddo fiican ma laha waxaan ku codsanay dawladda horta inay waddada noo bilowdo dawladda cusub insha allahu tacaala wixii kale anugu karaankayga ahna waxaan doonaynaa inaanu dawladda cusub la jaan qaadno oo la tallaabsanno waxaananu mahad celinaynaa madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi wasiirka kalluumaysiga waxaan leenahay ku soo dhowaada madaxweyne iyo wasiir degmada bulxaar hadduu la yidhaahdo annagu horta waxaanu nimi halkan daraato shaqadana waxay shaqa in badan soo socotay oo ay laga bilaabay markii hore berbera waxa laga sameeyay meel lagu kaydiyo kalluunka imka xoog u shaqeysa oo kalluumaysatadu ka aflixeen ama ay wax badan u qabatay waxa laga siiyaa barafka waxa u yaala muxuu ahaa kaydiyaashii lagu kaydinayay waxa shaqaale u jajaban oo in badan wax u qaban kara oo isu geyn kara kalluunkoodii ilaa intuu qofku suuq soo helayo ayaa laga furay dabadna waxaan ugu xigsiinay berbera waxa ku xigtay muxuu ahaa saylac waxay soo dhamaatay imika waxay shaqeynaysay ilaa 4 bilood ilaa 5 bilood meelahaas imika shaqeynaysa shaqada waday tani waxa weeyaan xaruntii saddexaad ee fair fishing imika bilowdo inta berbera la geeyay in laag baana la keenaya haddii noqoto baraf dhaliyihii muxuu ahaa talaagadihii lagu qaboojinayay lagu kaydinayay kalluunka dhiskii oo imika socdo oo dub habeen lagu sameynayo iyo kulli agab fara badan oo daba socdo way la socotaa waxay soo saarayeen markabkii soo saarayeen alaabta intii badnayd liiskeedana waxa wanaagsan kulli in xafiis bay leeyihiin oo deebaro si gaarin kulli helayeen markay hawsha dhamaato ayuun baa la soo bandhiga laakiin waxaan imika sii sheegi karaa in baraf dhaliye la socdo inuu oo 3 tan ugu yaraan inuu la socdo kale muxuu ahaa talaagada waaweyn oo kalluunka lagu kaydinaya inay la socdaan agabkii kale kalluunka lagu muxuu ahaa dayactirayay aan xumaanta u diidayay ya haddii inta ay hesho degmadu waxaan qabaday xogeeyay waa kan la joogay inay wax badan u tarayso insha Allah taala anagu qaybtii inta naga hagaagsan waanu qabanaynaa waanu wadnaa qaybo kale oo kale mustaqbalkiina way jirayaan in laga sii weynayo qayb kale lagu darana waa suuragal insha Allah taala laakiin imka intii lagu dhaqaajin lahaa oo intan u horeyso ayaanu gacanta ku haynaa waxaan kaga baxayaa de kulay si gobolada kale uga faa'iideystaan ama uga faa'iideystay saylac uga faa'iideystay berberi in insha Allah taala uga faa'iideysan doonto halkana agabka la keenayo cid u yeelatay de xaq ama nasiibka u yeelato reer Bulxaar runtiina waan de soo dhaweynayaa muxuu ahaa qorada noo timay reer Bulxaar aad bay noo soo dhaweeyeen runtii ku mahadsanyiin annaguna wixii aanu kari karro aniga de muxuu ahaa shirkaddan u shaqeeyaaba ama fair fishing waanu wixii karankayga waanu qabanayna insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa mahadsantiin xoogaya waxa kale aanu u mahadnaqaynaa de kulli cid walba bolisba dibadda ka riixaya kulli dawladdu iyada arrintan ya xeebaha madaxweynaha iyo wasiirka iyo kulli waxay xiriir dheer bay seerooda taxanaa oo la doonayo in xoolaha iyo kalluunka ay noqdaan waxyaabaha de maanta qaniga dalkeenu ku yahay in la horumariyo wax badan la geliyo insha Allah taala waxaan ilaahay ka baryaa in kuwii ka faa'iideysta ilaahay naga dhigo inaanu hawl yareeyo hawsheena waxay tahay Soomaaliland waxay leedahay bad ilaa 800 kilomitir imika waxaan joognaa Bulxaar waxyaabaha hodan ku ah kalluunka maxaa isleedahay baahidii kalluun ee wadanka jiray oo ka taraya meeshan doodaan imika gacanta ku haysa wallahi walaal halkan waxay ka taraysaa waxay berbera waxay ka tartay oo de iminka la ogaaday ama de soo noqotay muxuu ahaa la tijaabadii horeysa berberi waxay ka tartay ninku markuu badda galo kalluun buu soo saarayay kalluunku soo saaro haddii aan laga siisan waxay yiraahdaan dadka cidda doonaysa naga sii haddaan laga siisan uu qulmayo uu daadinay khasab ay ku adinu daadiyo ama inuu wax xalaalo xil yiraahdo siiyo maanta ninka kalluumaysatada markuu badda galo ee uu soo saaro faa'iidada ku jirta waxa weeyaan halkan waa kay uu dhiganaya inama uu joogaya waa loogu meedhaya waa loogu xanaaninaya waa loogu store garanaya isagoo wixii halkan u yaalo ka warwar qabin ka xumaadeen buu Hargeysa tagaya wuxuu tagayaa berbera wuu soo iibsanayaa wixiisii mar alla markuu soo helo muxuu ahaa cid ka iibsanayso suuq ka iibsanaysa ayuu wixiisii nadiif halkan keenaya dabada loo gelinaya uu ka raranaya ya marka waxa ka baqaysa de khasaare inta leeka ee la daadinayay ayaa laga badbaadiyaa muxuu ahaa kaydka iyo barafka waxa kale oo laga badbaadiyaa de marka la keeno iminka halkan laga soo saaro badda laga soo saarayo waxay u baahnayd muxuu ahaa baraf lagu galo badda barafkii badda lagu galayay
waxa laga doonayay berbera marka hore distance inta lag soo soconay ya distance markuu bartan ka qaato badii buu gelayaa barafkii buu la gelayaa markuu badii la galo barafkii wuu ku kaydsanaya markuu qabto wuu ku daraya barafkii kalluunkii aan xumaan fresh ayuu halkan soo gaarsiinaya haddana isagaan xumaan fresh marka la qaadayo waxa la sameeyaa gaadhiga baa lagu soo dul barfinaya barafkii buu haystaa ilaa Hargeysa ku gaarsiinaya marka faa'iidada inta leeg ya muxuu ahaa xumaantii ka badbaadinaysa kalluunka la soo saaray ama wax soo saarka wadanka muxuu ahaa difaacisa ayaa laga faa'iideeyaa de marka taa laga faa'iidana waxa laga faa'iideeyaa waxay keenayso dhan lacagtii laga helayaa la faa'iideeyaa muxuu dhaqaale wadanka soo galaysa la faa'iideeyaa faa'iidada isla socodka baa laga faa'iideeyaa idinku maalan Ethiopia ku xeeran waxa baatay kulli kalluun uu jiro u baahan yihiin ininku Somaliland baa u baahan kalluunka marka laga yimaado marka door nooceeba ku leedihiin in baahida kalluunka wadanka jira ka caawisan dadkan dawladda waxaan ku leenahay iminka xeebi waa kuna xeebtan waa tii saddexaad burcaymka waxa ka socda dhis weyn oo lagu kaydinayo kalluunka laga soo saaro ama bulaxaar ama muxuu ahaa berbera ama seyla ayaa la geenaya hadii intii gaari karta marka la geeyo taana keedkii ku helaya keed weyn baa imka la wadaa 2 container min 40 tan oo kalluun qaadaya iyo suuqii lagu iibinaya baa laga wadaa imka socda hadda gacanta ku socda muxuu ahaa shaqadan soo socoto ayuu ka burcano socda kii Hargeysa imka la bilaabaya boorama muxuu ahaa wali lama bilaabin laakiin meeshii lagu bilaabi lahaa wali loo banaynin oo ijaaduna insha Allah taala waxay ku soo jirtaa dariiqa hadii loo beeska ay keenaan qolada deegaankii keenaan say halkan u keento kale iyadana way socotaa marka keedka soo saarkii halkan keed baa lagu sameeyaa halkii suuqa lagu iibinayana waxa loogu sameeyaa qaboojiyaal labaad iyo keed labaad oo laga iibiyo oo laga wayn marba kalluunka kaasa ku jirta faa'iido taasi leedahay daawadayaal waxa isaguna barnaamijka ku jira oo aanu xog kooban idiga haynaa beerta ay timirtu ka baxday ee dawladdu leedahay ku taale degmada Bulaxaar halkan waxa weeyaan beerta timirta dawladda Somaliland beerta dawladda askare waa beerta timirta ee mashruuca Soomaaliya bariga hore ahaan jiray dawladda Soomaaliya imika dawladda Somaliland baa la beerta timirta in loo taagay imika waxaana maalgeliya maamulka degmada dawladda hoose ee Bulaxaar ayaa maalgelisa laba nin baa ka shaqeeya habeenii maalin buu tagay meel kale ka tagaan waayo meesha waxa joogto bahala dhido ayaa jirta ma dhidayna hadda ka dhaqaaqaan gamta waxa uu istaagsan labadan mishaarkooda naga sina cid dawladda naga caawiso ma jirto hay'ad naga caawiso ma jirto maamulka dawladda hoose ee Bulaxaar ayaa siiya mishaarkooda iyo raashinka bisha ay cunayaan maraha soo dhigna timir wali ma ka soo baxday gudoomiye ma imika wasiirkii hore ee beeraha Berbera wuxuu lagu yiri 3 sano markay joogto ayaa la goranaya buu imika waxa marta 2 sanadood marka imika inta waa boqol doolar geeda ayaan beeray waxay beerayeen 2 sanadood imika halka waxa ku qodnay 100 god baan ku qodnay marta waxa laga abqaalaya taasa la goynaya oo god cusub lagu ridiyo marka boqol kaalmo lagu daro waa 200 iyo 50 ay geed bay noqonaysaa insha Allah maxay xaqii wax soo saarka timirta wadanku timir u baahan yahay in la cuno oo waxay ka mid tahay waxyaabo ugu muhiimsan midhaha la cuno marka hadii bay sida noqoto soo baxdo beertan la sheegaysa in dawladdu leedahay ee ku taala degmada Bulaxaar maxaa leedahay bulshada iyo xukuumadda in beerashana la sameeyo dawladdu leedahay horta waa la mahadiyo horta waxaan jeclahay in sanadkiisa lagu afroba adoo ay rabaan hadaba lagu afro ayaan jeclahay hadoo la yiraahdo maadaama hadii sanadkaasi lagu afro dawaa faa'iido soo heshay dawladdu soo heshay degmadii soo heshay annagana dawarno magaco Bulaxaar baa timir beerta soo saarto timirta la cunayo dawladdu magac bay keenaysaa manaafacaadna waxa keenay dadkii Soomaaliya doolada marka waan aragnaa meesha waa xeeb marka xeebtu timirtu ma aad uga baxda meesha waxa ka bixi jirtay timirtii ugu badneed Soomaaliya Bulaxaar bay ka bixi jirtay mashruuca timirta Soomaaliya marka timirtii hore way go'day tan dambe waxaan ku joognahay in tii kor noqoto biyuhu waa macaana waa biyo way yaqaan laakiin biyaha qayb ku baxdaaba ay ku baxdaa timirtu sayno sheegan dinamada ka shaqeeya iyo sidkii hore beeraha noo shaqeey marka waxaan baa qudreynaa ustaad waxbarashada iyo hay'adaha inay loo yimaadaan oo beertoodan dawladdaas ka wasiirku yimaado beertii wasiirka waa tii madaxweynaha waa tii dawladda waa tii shacabka Somaliland inay yimaadaan shaqaalahana ay naga caawiyaan wixii kale beerta lagu soo kordhinaya naga caawiyaan baan ayaan la wasiirka doolay lado agaasimaha iyo wasiirka waxaan leenahay waxa jooga isduwa aad u fircoon degmada gobolka Saaxil Maxamed Jaamac Leela loo sharbu loo yimid ninkaasna lawan aad noo shaqeeya waxa la wasiirka beeraha
inuu ku soo dhawaado beerta timirta dawladdu leedahay insha allahu tacaala de marka loo eegayo waa xeeb gudoomiye ku-xigeenka degmada Bulaxaar marka biyo ma idinka soo dhameeyay mise ceel bay halkan ku leedahay beerta dawladda ee degmada Bulaxaar sheegaysa halka ceel bay ku leedahay ceelkaasi biyo jiba soo tuura boqol dad tuu jigu biyo soo tuura barkada bug soo riyaa markaas saaqadan bay soo maraa biyo saas lagu waraabiya marka ceelkan ma kii magaaladu ka cabaysay ma ay kan beerta garwiye dawladdu waa iskale beerta garwiye mal qorshaha ma idigu jirtaa ina beertan dawladda ku dartaan midhayaal kala wax soo saar leh si wadanku uga maarmo alaabta dibadda uga imanaysa wax soo saarka wadanka loo kordhiyo qorshaha ma idigu jirtaa ina ay tamyo kala ama shayyaal kala wax soo saar oo liinta iyo waxyaabo kale lamid ah ku beertaan والله ورجينا إن شاء الله تعالى مثلاً والله قبيري لكن إما كهذين ملاهم بيها دامو يرفض هلو وحلا وحكسك بحيار لكن بيها إما قناة كان كويلا بيوصل جيت كير كان بحيار لكن هذه بيها مع ملاها لو قضاء بيها يرفض وحلا وحكسك بحيار daawadayaal saarkaysan halkan waa beerta timirta ee dawladda Soomaaliland leedahay ku taala degmada Bulaxaar gobolka Saaxil oo markii ugu horeysay arko beer dawladdu leedahay marka laga yimaado beeraha mashruuca ee ku yaala galbeedka Soomaaliland ee ciidamada iyo dawladdu beerto beer dawladdu leedahay oo xeebta ku taalo khudraddan laga beerayo timirta wadan wuxuu ka hormaraa uu kaga maarmaa waxyaabo badan oo dibadda ka yimaada markuu kordhiyo wax soo saarka dalagga beeraha tanna waxay ka mid tahay siyaasadda xukuumadda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisu ee ku wajahan xagga wax soo saarka beeraha iyo dalagga waxa la jaan qaadaya oo dadaalka tal la mid ah wada dawladda hoose degmada Bulaxaar tanna waxa ka mid ah dirooyinka kor u qaadaya wax soo saarka xagga beeraha iyo midhaha dalagga beeraha inta ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka beerta timirta degmada Bulaxaar sawirka waxa qaadaya Cabdi Cumar Jibriil inta ayaan ku soo gabagabeynaya aniga Xasan Faarax Qamaane barnaamijka mid la mid ah inta kulmi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.